markii ciidamada qaaska iska caabinta ay jebinayeen derbiga birta ah ee kala qaybiya Gaza iyo dhulka la haysto waxay ku jireen dagaal ciidan laakiin meel aan laga filaynin ayaa dagaalka ka socday gudaha kombiyuutarada iyo shabakadaha sirdoonka halkaas waxaa ka soo muuqday laba haliyey oo aan la arag aan la maqal laakiin ficilkoodu ka xoog badan yahay rasaasta أحمد يا علاء لو ولا لورير سودان أحمد أو على ويلا تنجر يا علاء أو على تيتو بجر وحي فلين هولقل سوين أسامي أمني قميستها وحي جميع لو شركة وقميستها وقبل سنة برنامجية دقنينتا ريد ألارت نظامك قميستها واستعماله إن دادك لو قد يقامي آقا غزة وقد دكتو ويررده سيوقلان قبات markii nidaamkaas uu istaagay dadka gumistaa kama aysan warheynin ilaa ciidamada iska caabinta ay gudaha u galaan guryahooda weerarka maskaxda lagu qaaday wuxuu sabab u noqday in la jibiyo kalsoonidii tiknoolajiyadda gumistaha ku faani jireen Axmed iyo Calaa waxay Telegramka ku faafiyeen fariin gaaban oo ah waa idin garab taagannahay iska caabinta Falastiinay intaan ayaana ah awoodina taas waxay fariin maqalkeedu aad u yar yahay laakiin saameynteedu aad u balaaran tahay 18 Oktoobar 2024 wasaaradda cadaaladda Mareykanka waxay saacad u shaacisay dacwad ka dhan ah labada walaal iyagoo ku eedeeyay inay madax u yihiin koox ka mid ah kuwa weerarada cyberka ugu qatarsan dunida Anonymous Sudan kooxdan ayaa fulisay in ka badan 35,000 oo weerar oo lagu beegsaday boqolaal shirkadood iyo hay'ado weeraradooda waxaa ka mid ahaa weerarkii ay ku qaadeen FBI-da Mareykanka Pentagon wasaaradda cadaaladda Mareykanka garoomada diyaaradaha isbitaalada iyo warbaahin shirkadda ChatGPT OpenAI oo ay ugu jawaabayeen hadalkii naceebka lahaa ee uu jeediyey Sam Altman kaasoo uu ku qoray Twitterka weer u dhigan xasuuqa dhammaantood oo laaya midnaha ka reebina sidoo kale waxay jabsadeen website uu gumaystuhu leeyahay sida Jerusalem Post dagaalka cyber ee hogaaminayaan kooxaha muslimiinta iyo kuwa taageersan Falastiin wuxuu noqday halgan cusub oo aan toogasho lahayn balse leh waxyeelo aad u weyn waxa hoggaan ka noqday kooxo badan sida Anonymous Sudan Anonymous Algeria Tufan Iran Killnet Russia Cyber Army Morocco Cyber Tufan Al-Aqsa iyo kooxo kale oo ka kala yimid Turkiga Bangladesh Syria North Korea iyo Jordan weeraradoodu waa kuwa kala duwan sida DDoS Service Drop jabsashada xogaha burburinta nidaamyada iyo faafinta xogaha qarsoon waxay beegsadeen militariga dawladaha iyo warbaahinta waxa ugu muhiimsan oo ay qabteen waxay ahayd sumcad jiminta gumaystaha iyo jiminta amniga dhanka xogta 7 Oktoobar 2024 Abu Cubayda oo ah afyeenka iska caabinta wuxuu ku baaqay weerar cyber oo balaaran maalin gudaheed hacker Algerian ah ayaa weeraray 10 website oo gumaystaha uu leeyahay isagoo sawirka Abu Cubayda ku dhajiyay bogagooda hore kuna qoray Gaza ilaa dhamaadka dagaalku hadda ayuu bilow yahay ee diyaar garooba tani waxay ahayd digniin ah in dagaalku uusan ahayn mid ku kooban qoryaha balse internetka isgaarsiinta iyo xogaha ay yihiin furman dagaal xarunta jawaabcelinta degdega ee gumaystaha waxay 2023 heshay celcelis ahaan 500 oo wicitaan maalin kasta dadkaas oo leh qof ayaa qalbkayga jabsaday qasaaraha la diiwaangeliyay gumaystaha waxaa la sheegay inuu gaaray 3 bilyan oo dollar sanadkii 2023 dhaqaale sumcad iyo niyad dhammaantoodu way jabeen Axmed iyo Calaa waxay muujiyeen in iska caabintu aysan kaliya ku ekeen dhulka Gaza ama buuraha Lubnaan waxay iftiimiyeen wajiga cusub ee halganka iska caabinta xogta iyo garaadka Axmed iyo Calaa ma lahan magac la buunbuuniyo mana lahan warbaahin taageerta laakiin ficilkoodu wuxuu si qoto dheer u saameeyay awoodda gumaystaha waxay ka jibiyeen gudaha qalbiga tiknoolajiyadda halkaas oo ay ka moodayeen inay ka nabad galeen ama ay ka bad qabaan run ahaantii dagaalku uu socdaa haliyaduna way badan yihiin weerarada cyber ee ka dhanka gumaystaha waa mowjad cusub oo halgan ah waxay muujinaysaa in muslimiinta carabta iyo dadka xurta ah ee dunida inaysan weli is dhiibin hakarada sida Axmed iyo Calaa waa geesiyaal aan dhulka lagu arag balse qadadka internetka ku dagaalama iyagoo aamusan taariikhdu way xus doontaa iyagoo aan ahayn kuwa wax toogta balse kuwa maskaxdooda u horay xorriyadda Falastiin waxaan rajaynayaa muuqaalka inuu noqon doono xasuus taariikhi ah oo lagu dhiirigeliyo jiilka mustaqbalka soo koraya Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittibaa'a wa arina al-baatila baatila warzuqna ijtinaabah fi amaan illah